السلام عليكم حروا أخيارتا إناني حسوسيو يا قفك معنا إلو دذالو دذالك آد أيو مهم ويهي محايا لقفك هدو دذالين يا هرمر مقارا يا محايا لي سيدا مثال أهان قفك الدكتور كأه ما قصنا أيو قفك الدكتور كجامعة دقتي يا سنوين بدن أيو جامعة دقتي سوما أهان 5 sano 6 sano 7 sano sida Mareykanka iyo Canada iyo Ingiriiska oo kale qofka dhakhtarka jaamacad wuxuu ku jiraa 10 sano iyo wax ka badan 12 sano iyo 14 sano ayuu jaamacad dhigtaa waxa uu wacan macnaa uu ogyahay jaamacadda hadduu dhameeyo shaqo fiican uu helayaa dhakhtar uu noqonayaa yaa macnaa noloshiisa way isbedelaysaa nolol fiican ayuu lahaanayaa marka wuu sabray yaa aqoonsiyo jaamacadda uu dhigtay wuxuu bartay halahaasoo sannadood dhan wuu sabraay soo ma ahan sabar 10 sano kadib dhakhtar uu noqday ama injineer uu noqday jaamacaddu ka baxay aqoonsi uu yeeshtay soo ma ahan hadda dadka badanaa jaamacad ayay dhigtaan jaamacadda macnaha waa kharash lacag ay kala baxaan jaamacadda markay dhameeyaan kadib yaa shaqo la'aan ay taagan yihiin shaqo ma haystaan shaqaalahan ay taagan yihiin shaqay raadinooyin marka ka waran hadduu qofka aqoonsi oo faa'iido leh hadduu qofka barto yaa aqoonsi faa'iido leh qofka hadduu barto oo macnaa oo dadaalo oo kusoo fiican ku dadaalo yaa qofka dadaalkiisa ku xiran tahay soo ma ahan qofka markuu jaamacad dhiganaayo oo wax baranaayo maxaa jaamacadda markuu dhameeyo kadib jaamacadda gacanta makaa qabanaysa soo ma ahan yaa jaamacadda badanaa gacanta makaa qabanayaan ku dhahayaan waa dhamaysa jaamacadda hadda waa kana hoo shaqadan hoo shaqo farta makaa saarayaan soo ma ahan may maxaa yeelay qofka dadaalkiisu ka xiran tahay qofka waa inuu dadaalaa aad iyo aad ayaa qofka laga rabaa inuu dadaalo marka sida oo kale qofka hadduu doono inuu horumar gaaro horumarkaas waxaa laga rabaa in uu dadaalo yaa maxaa yeelay qofka macnaa dhibaato u arkayaa saxriir u arkayaa qofka hadduu dhaho macnaa hawshaan way dhib badan tahay ama hawshaan ma qabi karay ama hawshaan macnaa aniga ma u qalmi ama saas hadduu is dhaho horumar ma gaaraayo yaa macnaa dadka gaalada waxay ku mahmaahaan don't quit ha joojinin horumar haddaa rabtid ilaa gaartid ha joojinin macnaa waxaa rabtid macnaa guulkaa rabtid waa ilaa ku dadaasha aad iyo aad ayuu muhiim u yahay ilaa ku dadaashid sida oo kale qofka macnaha hadduu rabo hadda tababar inuu qaato yaa tababarkii way badan yihiin horta hadda xilligan waqtigan lagu jiro internetka wuxuu noqday macnaa meesha oo ugu badan dadka ka shaqaystaan khaasatan dadkan Yurubta jooga ee Mareykan jooga Ingiriiska Australia joogaan maxaa yeelay internetka aad iyo aad ugu dambeeyaan internetka ka shaqaystaan dadka ardayda jaamacadda aado wadamahan Mareykanka oo kale Canada iyo Ingiriiska iyo meelahan way yaraadeen aad iyo aad u yaraadeen maxaa yeelay waxay fahmeen jaamacadda qofka dhigana 4 sano ama 6 sano ama 8 sano halahaas qarash uu galayaa deen uu qaadanaya macna jaamacadda markuu dhameeyo macna waxa lagu lahaanaa deen oo $50,000 ama $40,000 oo deen lagu lahaanaa kadib shaqo raadina waxaa laga yaabaa shaqo oo asiga oo macnaa niyadiisa ku furnaan inuu ka shaqeeyo oo dhib ku yahay oo macnaa oo raaxo ku ahaan inuu ka shaqeeyo laga yaabaa marka waxaan dhan waa loo gooyaa marka dhalinyarada badanaa waxay fahmeen xada xirfad ayay bartaan xirfad oo macnaa suuq leh oo caan leh ayay bartaan xirfadda markay bartaan kadib internetka ayay galaan xirfadooda internetka ka gadaan sida website-ahan sheegay Fiverr, Upwork, Elance per hour oo kuwaan oo dhan waxa waaye internetka ayay dadka ka shaqaystaan marka hadda faa'iidadaas ayay dadka taagan yihiin yaa faa'iidadaas ayay taagan yihiin marka qofka aqoonsiga inuu barto tababar inuu yeeshto aad iyo aad ayuu muhiim u yahay khaasatan macnaa tababarkaas aqoonsigaas waxa faa'iido badan ayuu keenayaa marka laakiin waxaa la rabaa qofka sabr inuu lahaado maxaa yeelay dadka haddaa fiirisid dadka oo macnaa oo guulka gaaray oo horumar gaaray sida Bill Gates oo kale Bill Gates waa ninka oo iska leh Microsoft ama ninka oo la dhaho
mark zuckerberg waa ninka iska leh oo facebook kuwaana horumaray gaareen laakiin hal maalin horumar kuma gaarin hal sano horumar kuma gaarin hal bil horumar kuma gaarin way sabreen way sabreen ama jeff bezos oo kale ninka oo amazon leh yaa qofka amazon iska leh jeff bezos yaa amazon wuxuu bilaabay adi 20 sano ka hor haddan amazon waa shirkadda ugu weyn maraykanka yaa maraykanka shirkadda ugu weyn amazon weeyaan yaa macnaa 20 sano dhan uu sabraayay 20 sano oo dhan ayuu sabraayay kadib uu horumar gaaray marka adiga yaa internetka gacanta uu ku jiraa telefoon waa leedahay mobile waa leedahay sim card waa leedahay internetka waa ku jirtaa yaa macnaa aqoonsi ilaa baratid aad iyo aad uu muhiim u yahay maxaa yeelay internetka waa mustaqbalka hadda wax kasta dadka internetka ka soo biyaan yaa aflaamaa lagu daawadaa heesaa laga dhageystaa yaa jaamacada laga dhigtaa wadamahan maraykanka oo kale canada oo kale jaamacooda dhan waa internetka hadda dadka internetka jaamacada ka dhigtaan jaamacadii hore oo meeshii hore la aadi jiray jaamacada loo lugay jiray ama gaari loo qaadi jiray waa laga tegay waxaas maxaa yeelay internetka mustaqbalka wax kasta internetka laga soo biyaa inkastoo wadamaha qaarkooda sida africa oo kale ama wadamaha carabta oo kale wadamaha oo south east asia oo kale in yar way dambeeyaan weli yaa in yar way dambeeyaan laakiin macnaa tartiib ayagana waxa waaye horumarka internetka iyo faa'iidada internetka ay leedahay tartiib ay u fahmooyin markii fahmaan kadib ayagana 5 sano kadib 6 sano kadib 10 sano kadib yaa way la qabsanooyin laakiin macnaa mustaqbalka waa internetka qofka hadda inuu fahma uu roon khaasatan dhalinyarada maxaa yeelay oo jiilka soo socda haddii mustaqbalka internetka fahma aad iyo aad ay uga faa'iideysan karaan yaa maxaa yeelay hadda dunida wax kasta internetka laga qabsadaa sida website-ka sheegnay alibaba oo kale yaa dunidana isticmaasho yaa dadka dunida jooga maraykan yurubta afrika aasiya dunidana laga isticmaalaa meeshay galaan alaabtay rabaan ka dalbadaan yaa waa loo soo diraa saasay wax macnaa oo ganacsi ku soo biyaan maxaa yeelay marka waa aqoonsi qofku aqoonsi inuu lahaado weeyaan haddaa dhahda macnaa waa baqayaa aniga wax ma baroweenaay lacagtay yaa ceshanaya yaa lacagtay waa ku seexanaa waa ku soo kacaa waa ku seexanaa jeebka ugu jirnaado yaa macnaa aniga ma isku faa'iideenaay aqoonsi ma baranaay haddaa qofka sidaa isdhaa horumar ma gaaraay meeshaa taagnaanaysaa laakiin haddaa macnaa oo geesinimo yaa waxa waa qofka hadduu rabo horumar inuu gaaro waa inuu ahaadaa qof geesi ah waa inuu macnaa barooweeyaa oo barooweeyaa dadka kale waxay ka baqaan yaa dadka kale waxay ay sameeyaan qofka inuu sameeyo waa hadduu rabo horumar inuu gaaro dadka kale waxay ka baqaan dadka kale waxay ka haraan dadka kale waxay oo macnaa oo rabo in la sameeyaan qofka hadduu isku dayo oo sameeyo qofkaas horumar gaarayo laakiin haddaa dhahday macnaa qofkaas heblaayo yaa sidaa sameynaya anigana sidaa sameynaya yaa qofka macnaa oo caajiska ah oo lazyga ah oo horumar isku ramin haddaa ku dayatid horumar ma gaaraysa waa idaa ku dayataa qofka macnaa horumarka u baahan yaa qofka horumarka gaara waa ilaa ku dayataa wax ilaa samaysid wax ilaa baroweysid isku taxaluujisid ayay noqonaysaa wax barowey adiga wax la sameey yaa wax la sameey wax la barowey yaa wax haddaa samaysid oo baroweysid ganacsi wax la iska fur wax la macnaa haddaa baroweysid dadka mujtamacaaga xaafaddaa joogtid magaaladaa joogtid fiiridi qofka maxay u baahan yihiin yaa dadka maxaa ka khaldan maxay u baahan yihiin sida dadka caawi lahayd dadka haddaa caawisid adiga horumaraa gaaraysa yaa dadka haddaa caawisid dadka haddaa wax u qabatid horumar ayaa gaaraysa marka waa kaasaa muuqaalkan aan rabo inaan ii keeno si macnaa dhiirageliyo maxaa yeelay luqadda ingiriiskana iska bartaa haddaa luqadda garanaysa waa okay macnaa si tababar ku suubi horumar saa u gaartid haddaa ingiriiska garanayn ingiriiska aad iyo aad u muhiim u yahay haddaa rabtid ganacsiga internetka ilaa gasha internetka oo aad ka shaqaysid marka maxaa la dhahaa af ingiriiska soo fiican tababar ku suubi practice ku suubi maxaa yeelay haddaa ingiriiska fahamtid macnaa muuqaal badan ay YouTube ku jiraan muuqaal badan oo af Ingiriis ay YouTube ku jiraan ka faa'iideysan kartaa marka waa kaas akhiir aan rajaynayaa waxa su'aalo leedihiin su'aashin hoos ku qora yaa Facebook group aan leenahay anaka macnaa oo aan dhiirigelinayno dhalinyarada iyo shacbiga Soomaaliyeed si macnaa ganacsiga waxa soo horumari lahaayeen Facebook groupkeeni yaa naga soo qayb gal isku diiwaan geli waa free bilaash weeyaan macnaa waxay su'aalo leedahay
iyo waxaasoo dhan meesha kaa qabanaynaa waa is caawinaynaa waxaan rabnaa macnaha dadka dhalinyarada soomaaliyeed oo shacbiga soomaaliyeed dhan la isku keeno dadka macnaha rabaan ilaa wax qabtaan oo macnaha tal u baahan su'aalo qabaano su'aalahaasi waxaas dhan laga jawaabo marka waa kaasa khayr aan rajaynaya